muuqaalkan samayntiisu wuxuu igu qaatay 3 bilood waa muuqaal aan isku barbar dhigayo 2 kulan oo kubadda cagta ah oo ka kala dhacay caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya iyo gobolka Manchester ee Ingiriiska haddii aad qurba joog tahay waxaad dareemi doontaa wadankii haddii aad qaran joog tahayna waxaad arki doontaa sida loo daawado ciyaaraha heerka sare waxaan isbarbar dhigi doonaa wax walba sida garoonka kuraasta jawiga xamaasadda qarashaadka iyo wax kasta oo dhaca ka hor inta aysan ciyaartu bilaaban muuqaalkeena maanta wuxuu noogu bilaabanaa halkan haddadan aniga asxaabteedaba waxaan rabnaa inaan baabuurkan u qaadano gobolka Manchester waxaan joognaa London aan joognaa hadda ciyaarta Manchester United iyo Bournemouth dhexmari doonta caawa aan rabaa isbarbar dhig inaan ka sameeyo waxaa laga yaabaa inay isdhaadid London ay joogtaa Arsenal Chelsea Tottenham koox badan ka dhisan isbarbardhiga maxaa London lagu sameeyay weysay laakiin run ahaantii waxaan taageerayay kooxda Manchester United in ka badan 20 sano 10 sano ka hor ayaan UK imid waxaan mar walba jeclaa inaan Old Trafford ciyaar ka daawado hal mar ayaan tagay laakiin waxay ahayd toor ciyaar ma aanan ka soo daawan markaas ayaan is iri maxaan fursadan uga faa'iideysan waayay maadaama aan muuqaalkan sameynayo waxaan go'aansaday inaan si dhab ah u daawado ciyaar oo aan in la wadaago khibradaas muuqaalkan wuxuu noqon doonaa mid dheer qaybta Manchester waxaan duubay December 2025 2 bil kadibna waxaan u safray Muqdisho si aan u duubo qaybta kale anigoo la sugayo kulan weyn nasiib wanaag waxaan daawaday finalkii General Daoud Cup oo aan isbarbar dhiga ka sameeyay United hadda waxaan imaanay garoonka waxaan jaranay ticket tour ah oo garoonka lagu tusinayo kooxda taariikhdeeda laga sheekeynayo ciyaartooyda meesha fadhiistaan iyo tababarayaasha iyo experience-ka si aad u dareentid hay xasan qaybtan experience-ka ka war wallahi waxaan laga sheekay karin maxaa yeelay this is waa lifetime experience marka qaar kuma soo marayso fursadan oo kaleeto ay hadda waxaan soo tusinaa meesha tababar Amorim iyo kooxdiisa iyo Benjilada Manchester United dhan ay fadhiistaan ina keena meesha waa meesha tababar Amorim oo fadhiisto maalin kasta ku aragtin kuraastan kala dhan oo kuraasta ay assistants ay fadhiistaan experience-ga waxaan hayaa kooxda Manchester United tababarayaasha kooxda dhan meesha fadhiistaan intana sidoo kale waxa fadhiisto Benjilada dhan fadhiistaan Maynu iyo ragga yiraahdo meeshaan ay fadhiistaan brother what's the experience like you see in Amorim see Oh my God, this is like the best day of my life. Yeah. Been supporting United for 31 years, literally the best day of my life. Marka kursigan maanta waxa fadhiisan jiray ninka odaga ahay Sir Alex Ferguson, all the time coach ever. Waa kaasa kursigiisa waa kaasa waxaan sameyn doonaa ciyaartii oo Bruno Fernandes rigoorada uu riday Amorim reaction ku sameeyay tusina ka wareeg Amorim markuu istiriinsan saas oo dhaha cirku fiirnay wuxuu diiday intaas rigoorada in la qabto diiday ma inta saas amal aha ma saas ma aha ya dhanka kale waxaan joognaa Muqdisho ani asxaabteyda waxaan saaranahay bajaaj waxaan ku sii soconaa ama isku diyaarinaynaa ciyaarta weyn ee galabta ka dhici doonto Stadium Muqdisho ee ah finalka Cup General Daoud waxaana iska hor imaan doono kooxda Horseed iyo kooxda MCC jawiga aad ayuu u macyahay sida Ingiriisku kale baraf iyo qabow iyo waxaas kama jiraan fanaanada ayaa wadanaa waa shidanaha galabta hadda waxaan taaganahay irida weyn ee Muqdisho Stadium laga galo tigidhkayga waa wadanaa ani asxaabteyda tigidhada waa wadanaa tigidha caadi ah la jaranaa oo garoonka lagu galaa qiimaha tigidhka insha Allah waa idin sheegi doonaa iridaana ka galeynaa hadda nala socon in keena تعبسوا ودوه شعيب تاجر يا شقيمة بدن النادي فاوين هرساد سبورت كلاب يصيروا كل النادي فاوين MCC أمام مقدسة سيتي كلاب أورنا أنت عيار فروق بدن وفينا الأخبار كشانل داود كاب وأنا رجالي نقربته سفروق بدن وصل قبل كان مركلة تاجر يا شقيمة بدن وحكور قلنا إلى الرعان تلما ماذا هل كل بكرة حاجة يا الله تصالين يوم سيوفر إسلام بشوش كلام بركي أكيد واستي أي أحمدو وحلي يا الله أركيت هذا عيارته أنت مركز وقلاي
gate number waxyaabahaas arkaya sidii adduunka kale waa iga dambeysay hawshaas waa la hormarinayaa kaararka kaarkiisa waxaa ku qoran qofka meeshuu galaayo iyo kursiga markaas dhinacan ma galaa inta ma galaa ma VIP ah teeda kale wayna kala lacag badan yihiin VIP da kan caadiga waa kala lacag badan yahay xitaa meelaha qaar oo la fadhiisanayo aan VIP da ahayn waa kala duwan yihiin VIP da meeqa lagu galaa hadda waa soo jarnay waxaa lagu galaa $5 kuraasta caadiga kuraasta caadiga $1 waaye dadku ku cusub ما شاء الله VIP da ciyaar final $5 ku daawato soo wax qof badan ay awoodi karaan marka niyo waxaan ku weydiinayaa markii la joogo Ingiriiska meeqa ku daawada dabcan qarashaadka aan ku daawada ciyaartii Manchester United iyo qarashaadkii toorka aan ku sameynay iyo qarashaad kasta oo ciyaartaas iga baxay muuqaalka dhimaadkiisa ayaan ku sharxi doonaa sidoo kale kooxda Manchester United iyo kooxaha Ingiriiska dhisan oo dhan koox kasta waxa ay leedahay qol dressing room oo qaas ah sidoo kale waxay leedahay conference room oo qol oo shirarka tababarayaasha lagu wareysto sidoo kale waxay leeyihiin qol museum ah oo lagu soo bandhigo kooxda inta koobay qaaday inta badan adduunka kooxaha caalamiga waa ay wada leeyihiin laakiin wadankeena Soomaaliya maadaama uu yahay wadan wali soo kacayo kooxuhu ma lahan garoomo u qaas ah oo waxa ay sheergarayaan tusaale sidii garoonka weyn ee Stadium Muqdisho koox kastaba markay dheeleyso dressing roomkaas waa loo sharaxa sidoo kale mataqaana conference-ga lagu wareysto iyo dressing room u qaas intaba ma lahan maadaama ay Soomaaliya wali dib u kabasho ay ku jirto mustaqbalka laakiin waa rajaynaa mataqaana inay Soomaaliya heerkaas ay gaari doonto dhanka kale waxaa bilaab rabto ciyaartii Manchester United iyo u dhaxeeyay Bournemouth taageeruhu garoonka ay ku sii yaacayaan anaga naftigeena waxaan isku diyaarinaynaa ciyaarta inaan galno dabcan sida caadada ah dadku markay imaadaan ciyaarta ka hor banaanka sawirey ku kala galaan anaga xataa dhinaceena sawir ayaan galgaleynay waxaa jirta garoomada caalamiga sida Manchester United oo kale marka la galayo tigidhadu warqad ma ahan waa digital waaye mobilkaaga online ka jaranay mobilkaaga kugu soo dhacay NFC ahaan waa taabsiine sidaas ayaa ku galaysaa hadda yarkan green markay tahay gudub waay ciyaarta marka waxaan nimaanay saacad ka hor ciyaarta nimaanay si aan u sii daawano warm up ka ciyaartooyda orodka ordayaan iyo xogaa waa isku leynayaan kulleeska saan daawano ciyaartooydii experience-ga aan u dareeno waan soo dhaqsanay dad badan ayaa jiro mataqaana garoomada xilli hore imaado anaga dadkaasaan kamid ahayn sidoo kale waxaan arkaynaa arbitrage inay maadaama dhul qabow ay tahay arbitrage naftigooda in isku leynayaan koox kasta iyo qof kasta oo garoonkaas ku jiro oo isku leeyna maadaama dhul qabow ay tahay si ciyaarta markii ay u bilaabato qofka soo kulul oo garoonka u galo hadda sa wada jeedin gadaasheeda waxa ka aragtiin ciyaarta inay bilaabatay garoonka markaa soo galo waxaan isdhahay hal saac ciyaarta ka dhiman waa la soo buuxinaa garoonka maadaama ay final ay tahay run ahaantii waxaan ka filanayay galabta in garoonka la soo camiri doono laakiin waxaa la ii sheegay badanaa ciyaaraha in lacag la'aan lagu daawo jiray marka maadaama lacag laga dhigay maanta VIP da $5 laga dhigay garoonka caadiga ina $1 laga dhigay xogaa dadkii inaysan awoodin mise firiga la qabsaday ilaa hadda ma ogi reer Muqdisho ma maleenayo in ciyaar $1 lagu daawado final inay awoodi weynayaan oo ma maleenayo dadka sportska xiiseeyo waxaan dareemayaa in mataqaana niyad ay u tahay ciyaartooyda finalkan imaatay oo isreebkan koobka General Daoud mataqaana isreeb dheer soo galeen dadaal badan ay soo bixiyeen haddana maanta ay ku qurux badneed dhalinyarada in la daawado laakiin nasiib xumo waxa waaye nasiib daro garoonku waa faaruq niyad u tahay isleeyahay in la dhiirigeliyo ahayd loo sabciyo garoonka la soo buuxiyo marka waa la soconaynaa inta dhiman bilow garoonka haddii dadku aysan awoodin in lacag ku soo galaan ciyaartooyda see loo fangarayaa iyo kooxaha waxaa jirto wax la dhahayo horta ciyaartooyda Soomaali qaar waxaa jiraan kooxooyinka mushahari ma ahan waxa mushahari waa wax kooban 4 koox 5 koox 6 koox mushahari marka horyaalka la dheelay dadka badanaa mushahari ma ahan marka waa dhaqaal xumo iska jirto marka ciyaartooyda badanaa kooxaha qaar mushahar ma la siiyaba lacag la'aan iska dheelay lacag la'aan iska dheelay mushahar ma qaataan marka ogtahay waxa isdaba xirida iyo wax walba oo waxa sameyn karo lacag marka mushahar qaataan dakhli fiican soo galay ciyaartooyda sax waay ciyaartooy iska baahan oo mushahar ku dheelina jiro oo kubadana jecel yahay kubadda cagta jecel yahay inuu dheelo marka ciladahaas iska jiraan marka taas qayb libaax leh masdii karna waxa ka qaato shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada maadaama ay garoonka is iimaanaynin qarashaadka diibeen adduunka lacag qaali lagu daawadaa lacagaas ciyaartooy kooxaha laga sameeyo taageeraha laga sameeyo lagu fangareeyo kooxo ay ku dhisan yihiin kooxdii lacag lagu daawanaynin de waxaan sidii kara way adag tahay in ciyaartooyda mushaar fiican la siiyo koox kastana in mataqaana ay ciyaartooyda mushaar siiso maya kooxda ma lacag ma lagu daawado inta ugu badanaa
marmarkay finaal tahay sida camaleynta lacag lagu soo galaan laakiin inta ugu badan caadi waa free waa la fiirsadaa okay xayisiimo oo kale fanaanado waxay xayisiyaan shirkadaha xayisiyaan ma jiraan sida adduunka oo kale ma jiraan laakiin waa insha Allah way rajinayaan laakiin wax ma jira male dhanka kale waxaa soo gashay ciyaartii u dhaxeysay Manchester United iyo Bournemouth waxaa aragnaa ciyaartoydii inay garoonkaas soo galayaan sidoo kale garoonka aad ayaa loo soo buuxiyay waxaan aragnaa calamo waaweyn in la babinayo si loogu taageero ciyaartoyda sidoo kale waxaad maqlaysaa sawaxan iyo taageerid iyo sacab iyo heesa qaas ah oo loo qaadayo ciyaartoyda si loogu dhiirigeliyo kulanka maanta oo ay guul u keenaan ciyaarta 14 daqiiqo ay mareysaba waxaa gool la imaaday kooxda Manchester United haddana ciyaartu waa 1-0 Manchester ayaa kaambiyada hore intay socoto waxaa laga keenay goolkii ayadoo hal tahay oo kaambi lama rabo 48 daqiiqo waxaa Manchester goolka 2-1 keenay ciyaaryahan Casemiro haddana waxa ay mareysaa 2-1 kaambiyana ku dhowdahay Casemiro era United! hadda waxaa la soo gaaray kaambiyadii sida caadada garoonkan iyo garoomada ka tirsan Ingiriiskaba dadku waxay sameeyaan breega waxay banaanka u soo baxaan garoon kasta waxa uu leeyahay maqaayadaha ku dhex yaalo iyo musqulaha ku dhex yaalo musqulaha iska galay waxa iska cunay waxa iska cabay anaga laakiin maadaama dad muslim aan nahay markii aan isku daynana wax gadgadano menu-ga dhanba waxaa ka buuxay screen-ka maxaa la raashin xalaal ahayn iyo khamri iyo waxyaabaha si gadaayeen kafee iyo jibsi waa uu jiray laakiin waaba ka baxnaba waa iskaga tagnay laakiin de qofkii aanan muslim ahayn meel yar oo jawi ku qaato oo yar ayaa loo sameeyay oo garoomada ay leeyihiin dhanka kale balance la fiirino Soomaaliya ciyaarta markii kaambi la maro waxyaabaha lagu baashaalay iyo waxyaabaha la sameeyo haya bilow ciyaarta hadda kaambi ku soo gabagabowday kaambiyada maxaa la sameeyaa wax lagu baashaalay ma laga helaa meeshan si fiican sida shaah camal helaysaa daanka heli iyo caafi waxyaalo badan la helaa sida qumbaha looska waxyaalo badan jira markii kaambi jeelis ku madadaali lagu baashaalo waxyaalo badan la helaa meeshan maama inta sheekh wado maamadana balansanayna maamo hay maam sheekh meeda عدسنا وضع سيدة عدس وعادي نسي هذا انت اوكي أنت عنيا أول ترى فذاك في عنت عنيا يا وين كوهاي لوس كيلو أنا قد منيه يو مش شبوي ولا شيء وحنا نصاري مسك عنتها لو قادنا بعنا وحر وما سنتها أنا واحد كستار أنا مت كستب على كده دمنا أنا mid kasta xaad إديك ما عارفين سكودا ميدو ما مت كستر لبان كسارنا أنا مت كستر لبان نوع كسار عنتاس عشان ما كجري موقت حقه هي أنا قرنا أيوة حال وقبتها موقت يا مد كستا لبا وما waxaan magaceedu laakiin ma nolosha sheegin kan qombo waay kan maxaa waay qombil jaal laga dhigay kana sisin waa kan ka maxaa nacluus kaas nacluus waa kan maxaa lado goorma igu dambeeyay kan waxa okay waxa qombo jaal laga dhigay waa rinji jaal lagu daro malaha أنا كل الدول وعندي دكتور صح صحيح تبغى ولا لا ده دمي ولا خطرة
شاحاجة بدها اسكو خبصو عيارتها داو عيارتو خبرتان دير عيارتو قليتاو ciyaartiin waa bilaabatay yaa cartana albiitra ka ah jawi abu dhanka kale Manchester waxaa la soo maray kambeedii hadda ciyaar waalan ah garoonka ka socoto aad la isku boobsiyo gool fara badan la iska dhaliyay hadda waxa ay maraysaa 4 iyo 3 ciyaartuna waxa ay maraysaa 79 daqiiqo ma aysan dhamaanin 7 gool ayaa la iska dhaliyay so far ugu dambeyn ciyaartu waxay ku soo idlaatay 4-4 Manchester United 4 FC Bournemouth 4 ciyaartuna bareejo ay ku dhamaatay waxay ciyaar aad u xamaasad badan 8 gool ayaa la iska dhaliyay dhanka kale ciyaarta ayadana waa ay kululaatay kaambiyada hore kooxda horseed ayaa gool la imaatay kaambiyada dambana way labayso oo ciyaartu waa 2-0 waxaan iskale horseed waxaana lagu leeyahay MCC horseed aan labaysay goolkii koowaad ma qaban laakiin 2-0 MCC lagu leeyahay gool qurux badan waxa laga dhaliyay MCC garoonka dhan waa la kacay garoonka waxa uu maleynayay in MCC ay ku taageero boonta laakiin goolkii hadda alsa dad badan kacay dadkii kubadda kooxda ku fiican may taageerayaan mase waa koox kaliya maya dadka ugu badanaa waxay taageeraan militariga horseed taageer badan ay ku leedahay garoonka dhinacaan aan fadhino dhinaca horseed waa miya dhinaca horseed dhinaca MCC waas laba saf loo kala fadhiyaa hadda fahmay dhinaca anagoo waxaan fadhinaa horseed xamaasada marka horseed laba gool leh xamaasada dhinacaan ka dareemeynaa ciyaarta aad u kulushahay koobka yaa qaadi doona caaw galabta ma laga keeni doona horseed labada gool mas'aayada koobka guuleysan doonta si aye garaac ciyaarta laba laga dhigay laba ciyaartii dhammaan rabto MCC bareejo liimaad haya bile ciyaarta ka warnaa laba waay ciyaarta xamaasada hadda la fiicanta laba waay niyo laakiin aniga dhinaca horseed inaan fadhina u maleynayay waa la kacay maxaa qaldan meesha waa isku dhex jira dadku waa isku dhex jiraan ciyaar aad u kulul labii eberkii maadan horseed ciyaartoo dhammaan rabtay keeneen goolka bareejada kolleetu koobka ciddii qaadi doonto ciyaartu waa kulushaa galabta axmedow ciyaartu waa adag tahay laba waaye horta kooxdee la jirtaa new MCC mase horseed awalka hore horseed ahay hadda waa MCC waay هاي بلد كوحدة اللي درتها كوحدة سلالة وقاية لا ورسد نيو أنا ورسد أمركور اللي جري لكن هذا لما نيجي نسكر الله بيه أمر كي ما تمسي سي سعوة لكن أنا ورسد كل جنا ورسد اللي جرى بس أنا ورسد أنا هذا أنا ورسد ما أنا أول كورة ورسد هاي ما دام هذا MCC صلاوتي MCC أنا كلا أنا MCC أنا قاعد هذا hadda waxaa soo dhamaaday ciyaartii banaanka ay dadka dhan u soo wada baxeen waxaa jiro garoonka in dukaan weyn uu ku hoos yaalo oo shopping ah oo lagu iibiyo dharka sportska noocyadiisa kala duwan ee kooxda marka maadaama anaga safar dheer aan London ka nimaanay oo aan Manchester nimaan waxaan jeclaysanaa inaan ka shoppinaysan meesha oo dhar xasuus nagu noqdo aan ka gadana meesha dabcan anaga Banooni dheelanteen oo badan qaasatan aniga sports ah isbuuci laba bari aan Banooni dheela marka waxaan jeclaystay dhul qabow maadaama aan joogo inaan sarwaalkan iyo fanaanadan aan ka gato saaxiibkii Xasan Asiin sidoo kale isku jooggaas oo rabaa inuu gato liibaan sidoo kale jaakad ayuu gatay qof kasta wuxuu jecel yahay ayuu gatay marka hadda intaan ka adeeganaynaa kadib waxaan isku kiin daraa marka adeegan qiimaha aan ka soo bixiyay iyo tikidka aan ku galay garoonka iyo toorka tikidka aan ku galaba
kulli waa isku keenta daraa waxyar ka bacda idiin sheegaa dhanka kale ciyaartii muqdisho ka dhacaysa finalka waa ay waalatay ciyaartii dhinaca kale ayay aad MCC asdaxaysay laba keena hal allah يا لما كان هلا لما كان هلا كويلة جرت أنا MCC على جرا يا MCC وكعسلته ها عيارتي يلو لكن محرجاني عيارتو أنا كوب MCC صالح ستارتين ناشا MCC كوب كنا قاعدين رجاني سينما كمان MCC vamos كمان vamos vamos واو ودبل maxaa dhacay waana karaaya anaga waa soo laabanay كان هذا ودنا مش كل أفراد والله شن جول الاسكندرية عارتان شن جول الاسكندرية اكسترا تايم عيارتا والله يكون ماتي اكستري MCC جول إمات waxay ka dhigan tahay labi ewer ee maadeen 90 minutes kila laba ku dhamaatay اكستري kan video hore qaybtii hore hadatan 2-3 waay aragna bal horseed ba waxa la imaatay ayadana ay kooxda waa qaadorkiisi waxaan fursanay insha Allah waxaan jeerinaa inaan koob labaad qaadno ninka saaxiibka horseed waa laga qaaday maxalada maalinta kale sanadka kale sugnaa ma sha Allah ninkan raga waa sanad kale soo adkeena oo dhah saas waa saaxiib ciyaar 3 sano isku mar hal mar qaaday ma dhici kartee 3 sano ninka markii ugu horeysay waa miya dhimana markiisa waa markiisa إن شاء الله ciyaarta waxay ku soo laatay guul koobkana waxaa qaaday MCC qaadeen waliba si cajiib ay ku qaadeen ciyaartana waxaa la iska dhaliyay 5 gool waa ciyaar aad u xamaasad leh aad u qurux badneed taageeraha daaimka ciyaarta soo galay dad yar ay joogay hadda laakiin garoonka haafa la soo bixiyay niyo waxa kale oo dhan ay loogaayay albitra ciyaarta hayay wuxuu ahaa cartan albitra ugu fiican Soomaaliya qaadayna albitra ugu fiican Africa 2025 niyo horta game cajiib wahay waa game fiican la leelay تذكر كلا واحد كلا عجيبة البيترا هاي معنا وانين أو انترناشنال والبيترا أفريقيا واي البيترا واحد كمان نقضي البيتراش أو فيفا مركز جيم قروح بدنا وهاي لو قولا نقول هرب MCC ويصبر شيء قول كنا كانن وين بديان معنا مركز جيم قروح بدنا وهاي عادي ما والله أنا صدقت عادي ما isku soo duuduubo marka kharashaadkii aan Old Trafford ku daawaday waxa uu ahay oo tikid ahaan ciyaarta aan ku galay 79 baan ayuu ahay keligii arshani aniga ay xisaabina markaas qof kastaba intaas oo kale u dhiibo oo uga dhafay karteen xisaab ahaan waliba maalin isniin aan daawaday habeen isniin waaye dabcan qiimaha hadduu axadiya uu ka qaalisan yahay hadduu kuraastas kursi ka duwan uu ka qaalisan yahay meelo 250 lagu daawadaa jiro meelo 300 lagu daawadaa jiro laakiin qiimaha markaas ugu raqiisanaay 79 oo ahay qiimahaas aan ku daawaday sidoo kale Turkey aan bilowgii hore aan galnay ciyaarta ka hor waxaan dhiibay 30 baanan dhiibay ani ahaan qof kasta intaas oo kale dhiibay sidoo kale dukaankii shopping ka shoppinaysanay fanaanada waxa ay joogtay 65 sarwaalkan waxa uu joogay 55 120 ayuu ahay marka 10 band discount ayaan la siiyay maadaama tigidhaha hor u jaranay 10% discount noo sameeyay dharka adeega marka isku gees total ani ahaan waxa ay u baxay garoonkaas inta aan joogay 219 baan dollar ahaan dabcan banka dollar ahaan uu ka badan yahay laakiin baan ahaan intaas ay ugu baxday haddana waxaa noo soo dhamaaday ciyaartii adkeed oo xaaradda leedo caawa dhex martay Manchester United iyo Bournemouth koleeto safar dheer ah waxaan rabnaa inaan ugu laabano London asxaabteeda la socoto ee shucuurtooda weydiin doona oo ugu horeeyo شافعي شعورتها عاكور نيو هورت شعورتيدو aad iyo aad u wanaagsantahay ma fahamtay kooxdeedu markii ugu horeysay aad daawado ayadoo leefa tan waxay ciyaar aad iyo aad u qiimo badan sababtoo ah inay 8 gool aad daawajid waliba ku daawajid garoonka maaragtay
Old Trafford Stadium waa wax aan maaragtay aan heli karin Champions League waa aadina ما شاء الله waa la huba hadalkaas waxba yaa laga horyaalka gelinta meecaro waxba yaa laga shaki ciyaarta waa soo dhamaatay MCC ku soo guuleysatay experience horta waa ciyaartii ugu horeysay Soomaaliya aan daawado garoon Soomaaliyeed Barcelona ka daawado marka كليتو أصحابتنا أنت وتجينا المقال كان مقال ميدا محله نياه إن شاء الله مقال كان قرح بدن مقال كلا ميدا إن شاء الله كان كسي قرح بدن أكسر حقو يوتيوب لايك سبسكرايب شير واحد كستهار سمعي إن شاء الله thank you بس أصحابي ما زنتين سبحان كي تجينا سداسيو نود قليل